السلام عليكم ورحمة وبركاته. كل وناكسن ميل والبوا جوجتان كسو دوادا برامجكن هو أنو قاعد لدونو حالدها ودنك إثيوبيا جارهان وحان برامجكن سيقوني ويجي دونا arrimaha la xiriira dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda iyo wararkii ugu dambeeyay qodobada aan soo qaadan doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada jiida hore waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan wolo ka socda iyo waliba koonfurta Gondar waxa kale oo aan eegi doonaa oo aan soo qaadan doonaa dadaalada dawladda federaalka wadanka Ethiopia ay wado ee la xiriira dhinaca hawlgelinta ciidamada iyo dib u tayeynta ciidamada militariga oo iyaduna wali halkeedii ka sii socota waxaan soo qaadan doonaa oo kaleeto barakacayaasha dhinacyada kala duwan ee ku soo barakacay dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia oo iyagu sheegaya markii ay dib u fiiriyaan xasuustoodana dib u celiyeen in TPLF ay dhibaatooyin u geysatay sida iyagu sheegeen markay dagaaladu socdeen in ay qayb weyn ka noqon doonaan dagaalka lagula jira kooxda TPLF kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda hadii oo gool la saamaxo aan ku bilownay dawladda federaalka wadanka Ethiopia gaar ahaan wasaaradda militariga ama wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ethiopia dadaalada ay wado ee la xiriira dib u habaynta ciidamada militariga wadanka Ethiopia wali halkeeda ayay ka sii socotaa maalmihii la soo dhaafay waxa badnaa tababarada ciidamada soo dhameysanaya kuwaasi oo ay dadku aaminsan yihiin markay tababarada dhameystaanba in jiida hore loo daadgureynay ciidamada militariga oo qaar aad u tiro badan oo kuwii tababartay kamid iyo kuwii horeeta qaybtood oo la isugu geeyay jiida hore dagaalka ayaa waxa ay warbaahinta dawladda Ethiopia maanta u sheegeen in ay xoreynayaan deegaanada Tigreega iyo guud ahaan xuduudda iyo dibadda wadanka Ethiopia cid kasta oo xadgudub ku wada meesha ay dooniba Ethiopia kaga timaade waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin difaacidda Ethiopia la wada leeyahay waxa kale oo ay sheegeen in ciidamada militariga hadii maalmihii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay dagaaladu socdeen sidii la rabay aan laga helin hadda ay u diyaarsan yihiin in sidii ay shacabka Ethiopia ka filanayeen iyo ka badanba ay keenaan taasina ay keeni doonto dib u xoreynta Ethiopia iyo wadanka waa xasilooni iyo nabadgelyo dhamaantii ay geliyaan waa sida ay ciidamadu hadalka u dhigayaan arintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo saraakiisha ugu sareeya ciidamada militariga wadanka Ethiopia oo uu hogaaminayo Burhanu Jula taliyaha ciidamada militariga wadanka Ethiopia ay gaareen jiida hore ee dagaalka waqooyiga ka socda waliba gobolka Wolo halkaas oo Burhanu Jula uu dhammaan saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga dagaalka hogaaminaya kuwa deegaanada iyo sidoo kale kuwa ciidanka caadiga intaba ay kulan halkaasi ku wada yeesheen waxayna ka wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa wajigii ugu dambeeyay noqonayana wajiga afraad ee dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda ee loogu soo afjari lahaa kooxda TPLF ee falaagada Burhanu Jula waxa uu sheegay in uusan jirin wixii hadda ka dambeeya waxay dhowrtaan iyo waxay sugaan midna hadalkiisana waxa ka muuqatay mahmaadii ahayd waxba dhowran maynaa allow dhagaxyo soo daadi taasi oo ahayd in uu taliyuhu dhammaan ciidanka u sheegay sumcadoodii inay hoos u dhacday wixii laga filayay inaan laga helin in wadankii Ethiopia oo dhan koox yar oo falaagi ay ciidankii militariga Ethiopia ka adkaatay laleeyahay taasina aysan ahayn xilligan wax loo dul qaadan karo ama la dhowran karo ciidanka waxa uu ku gubaabiyay cid walba inay guntiga naysha isaga dhigto ayna ku tala gasho sidii TPLF wadanka gabi ahaanba looga saari lahaa waxa uu taliyuhu sheegay in ay garab taagan yihiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ee dhinaca dagaalka hogaaminaysa waxa uu sheegay in dhammaan Ethiopia oo wada jirto iskaashanaysa TPLF aysan ka adkaan waayin laakiin ay hagrasha jirto waliba ciidamada militariga waxa uu ku dhaliilay in aan sidii looga baahnaa ilaa iyo hadda aysan tayadoodu iyo waliba dagaalgelidoodu aysan ahayn waxa ayna ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaya u ballan qaadeen inay Ethiopia xoreyn doonaan waxa kamid ah saraakiisha halkaas ka hadlay madaxa xiriirka bulshada ee ciidamada militariga wadanka Ethiopia oo isagu sheegay in shacabka u abaalgudi doonaan dhammaan waxyaabahaasi oo dhan marka aan fiirino waxay muujinaysaa
in toddobaadkii horeeto Demeke Mekonnen ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda uu tagay furimaha hore ee dagaalka kii ka horeeyay saraakiisha ugu sarreeyay ciidamada militariga iyo kuwa deegaanada iyo qaar kamida madaxda wasaaradaha iyo madax sarsare oo sirdoonka Itoobiya ka socda ay tageen maantana uu Burhanu Julla iyo saraakiilu hogaaminayo ay joogaan Abiy Ahmedna maalintii sanadka cusub ee wadanka Itoobiya la galay gaar ahaan 2 bishii Maskaram ee wadanka waa taariikh tirsiga Itoobiya halkaas isaguna uu tagay waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan markii ay culayska iyo cadaadiska TPLF uu soo batay iyo magaalooyinka ay qabsanayaan iyo waliba in guul ilaa iyo hadda aan laga gaarin dhinacyadani go'aansadeen in dhiirigelinta ciidamada ay tahay waxa kaliya la miciin bidi karo xilligan intaasi kadibna waxa soo baxday baaqi ciidamada militariga Itoobiya soo saareen ee ahaa in dhalinyarada ay Tigraygu lugooyeen sida ay hadalka u dhigeen ay isu soo dhiibaan ciidamada militariga intay goor tahay hadii kale tan ay talaabooyin adag qaadi doonaan dadka qaar oo arrimaha ammaanka qaaradda indheeya waxay sheegeen inay dawladda Itoobiya kaga dhabaysay oo talaabooyin adag maalmihii la soo dhaafay ay qaadaysay toddobaadkii aan ka soo gudubnay amaba toddobaadkan aan ku jiraan ilaahdee waxa dhacay dagaalo aad u cuslaa oo weerar celin ah oo dhinacyadu ay dhifaysyada isugu jireen ilaa iyo haddana waa lagu kala adkaan layahay marka laga reebo in khasaare laxaad la dhinacyada uu soo kala gaaray wax guul oo haba yaraatee la kala gaaray ma jirto wax ay dhinacyadu maanta sheegan karaan ma jirto inkasta oo warbaahinadooda ay ku sheegayaan inay guulo gaareen haddana wararka iyaga ka madax banaan waxa ay tibaaxayaan in aysan haba yaraatee wax horumar dhinacyadu midkoodna uusan samaynin abaabulka iyo diyaar garowga dagaalo hor leh oo dhaca iyo inay xiisadu sii socoto wali waa filashada ugu weyn ee ay dadku sheegayaan inay taagan tahay oo ilaa iyo hadda aan la haynin wax natiijo ah oo arrimahaasi ka soo naasacad oo muujinaya in dagaalkan lagu kala adkaan karo amaba ay dhinacyadu intuu caqligu shaqeeyo ay dib u kala baxaan dagaalada ugu badan waxay ka socdaan deegaano ka tirsan Wollo iyo koonfurta Gondar marka aan fiirino dagaalada halkaasi ka socda iyo sida ay xaaladdu tahay talagalka TPLF iyo kan dawladda federaalka iyo ciidamada ay hogaaminayso wuxuu dhan markaan isbarbar dhigno xaalku waxaad moodaa mid sii murgaya maalinba maalinta ka dambaysa taasina dawladda federaalka Itoobiya ka fursan maysa ay dadka siyaasadda indheeyay leeyihiin inay qaado talaabooyin kale oo waaweyn oo cir iyo dhul ah oo kooxda TPLF wax lagaga qabanayo laguna soo afjarayo dagaalkeeda laakiin TPLF ma aha niman la holin karo wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi naga soo gaarayana waxay sheegayaan inay dagaaladu halkoodii ka sii bilowdeen sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga gudaha wadanka Itoobiya sidoo kale tan telefishinada maamulka Amxaarada iyo kan dawladdu ay baahinayaan guulo ay sheeganayaan waxayna sheegeen in dagaaladu ay wali halkoodii ka sii socdaan dhowr magaalo oo hoostaga ee degmada Dhisa iyo sidoo kale to magaalada Gondar ayna dagaaladu ilaa iyo hadda la isku mari laayo halkaas ay ka taagan yihiin guulaha ay sheegteen TPLF kama aysan hadlin ma aysan beeninin mana aysan rumaynin laakiin sida la wada ogsoon yahayba TPLF marnaba guul darro ma qaadan doonto sida uu sheegay afayeenkooda TPLF Getachew Reda oo barta Facebook miciin biday waayadan markii uu xal kale u waayay xasaradaha ka taagan deegaanadiisa waxa aad moodaa in uu Getachew Reda kali ah uu aaminsan yahay in meesha kali ah la miciin bidi kara social media tahay warar kala duwan oo guulo uu ku sheeganayo wax kaga sheegay dawladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu halkaas Getachew Reda maalin iyo habeen ku soo qoraa waana takantay waxyaabaha lagu eedeynayo TPLF hadda ee ah propaganda aad u tiro badan in ay fidinayaan oo la xiriirta dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Itoobiya baaqyada caalamiga oo ay soo tarayaan dhinacyadana waxa laga codsanayaa in ay dagaalka joojiyaan waxayna dhamaantood la weydiisanayaa in ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan laakiin taasi way adag tahay dhinaca barakacayaasha waxa iyadana soo taraya macaluusha halkaasi laga soo sheegayo iyo gargaar kala duwan oo maamulada iyo dawladuba ay gaarsiinayaan goobaha ay barakacu ka dhaceen laakiin waxa ilaa iyo hadda aan xal loo haynin lana aaminsan yahay in xasuuq xumi uu ka dhacay deegaanadii ay TPLF qabsatay ee ka tirsan dawlad deegaanka Amxaarada tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo nabad.